Assalaamu calaykum. Soo dhawow daawade. Maanta waxaan kula wadaagayaa app aad u faa'iido badan oo kaa caawinaya inaad si wanaagsan u maamusho waqtigaaga una qorsheyso hawlahaaga maalinlaha ah, isla markaana aad diiradda u saarto waxbarashadaada ama shaqadaada. App-kan waxaa lagu magacaabaa Flipclock, waana app aad u fudud oo kaa caawinaya inaad waqtigaaga si hufan u maamusho kana fogaato dib u dhigista hawlahaaga. Haddii aad tahay arday, macallin, shaqaale ama qof doonaya inuu waqtigiisa si fiican u maareeyo, app-kan waa app-kaaga. App-kan waxaad ka helaysaa App Store-ka kala duwan sida Play Store ama App Store-ba. Sidoo kale waxaad kula soo degsan kartaa kombiyuutarkaaga. Haddaba aan isla eegno sida loo dejiyo loona isticmaalo app-kan. Marka ugu horreysa waxaad Play Store-kaaga ayaad soo furanaysaa. Marka Play Store aad soo furtid, waxaad ku qoraysaa app-ka magaciisa waxaa la yiraahdaa Flipclock. Qoraynaa kadib markaa qorno app-ka waa midka halkaa kaaga muuqdo waaye, xayeysiis ma iska dhaaf, kaas kore waa sponsor. App-ka midka labaad ay ku qoran tahay waa Flipclock Timer and Widget, midkay ku qoran tahay kaas ayaan ku dhufanaynaa. Kadib waxaynu leenahay install ayaan leenahay 5 milyan oo qof aa soo degsatay. Install ayaan leenahay. waa 10 MB app-kan aad buu u yar yahay MB-yashiisa, marka la soo waa tahay app-ka oo inoo soo degay. Waxaan leenahay markaan si fudud open ayaan leenahay. Markuu inoo soo furmo app-ka sida tan ayuu soo muuqanayaa. Wuxuu leeyahay marka timerka ama waqtiga markaa bedelaysid dhankan midigta aad saan u soo jiidaysaa, ama haddii Pomodoro aad rabtidna dhanka bidixda aad soo jiidaysaa. Pomodorada waxay tahay haddii tusaale kale waxaad ba akhrisanaysaa ama waxbaad xifdinaysaa 30 daqiiqo ayaad qabsanaysaa, kadibna waxaa waqtigaas uu ku soconayaa. Tusaale kale hadda fiir, hadda waqtigan haddii la taagan yahay waa waqtiga timerkan waa caadiga saacada oo taleefanku ka soo qaadanaya waa 1 saac 45 daqiiqo subaxnimadii. taariikhdan 8 ay tahay bishii 6 2026. haddii aad rabto inaad ka bedelo waxaan sameynayaa stopwatch waa samaysan karaa. Stopwatch haddii aan rabo dhanka midigta aan u jiidaya kaliya, kadib waxaan leeyahay play, tiradii caadi u bilaabanaysaa. Dib aan u celiyo timer haddii waa ka dhigan karaa. Timer haddii aan rabo halkaas ayaan ku dhufanayaa. su'aalo kale 10 daqiiqo ayaan rabaa inaan qabsado, sidaas ayaa la 10 daqiiqo saas ay u dhamaanaysaa. Iska tir. Okay, dhinacan kale waa marka focus marka wax sameynaysid Pomodorodii waa focus marka wax saaraysid oo kale 25 daqiiqo rabtaa su'aal inaad wax akhrisid ama wax aad xifdisid. haddii rabtid 25 daqiiqo intaa waa ka badsan kartaa qasab maahan, laakiin 25 iyo 30 qofka lagu taliya ka badan ma. haddii 30 aan gaarsiin hadda 30 daqiiqo meeshaan waa second-ka ilbiriqsiyada waaye, halkaana waxay tahay waa daqiiqadaha. hadda 30 daqiiqo hal meeshaan saacadaha laga bedela 1 saac 2 saac, marka waxay noo qaadaa 30 daqiiqo ayaan ku save gareynaynaa. Break-na inta uu sheegayaa lubiskan waa infinite, waa sida meelka kaaga muuqata. Break duration 5 daqiiqo break qaadanaysa. marka waxaad leedahay save ayaad leedahay, kadibna okay ayaad leedahay. dabcan meeshaan sida kaaga muuqata focus buu ku qoran. marka app-kan waa app muhiim ah, sidaas ayaa loo isticmaalaa. haddii aad rabo appearance-giisa ama qaab muuqaalkiisa inaad bedeli karaa, hoos app-kan hoos u jiid kor leer u dhufo, kadib waxaad bedeli kartaa waxa la yiraahdo widget waa bedeli kartaa. appearance-gaaga nooc cayaartida ka dhigan kartaa, laakiin midka caadiga ah isticmaalaani. sidoo kale waxaad bedeli kartaa waxa la yiraahdo app-ka themes-kiisa. qaybtan hoose ima ku dhufo clock themes, midka caadiga ah isticmaali kartaa. intaan midab midka u jeedid ayaa isticmaali kartaa. tusaaladan ka soo qaado kan hadda ku dhufto hadda kaas oo kale qaarkood waa lacag, laakiin kuwa badan oo free ayaa jiro. kan hadda aad ku dhufan kartaa, kan waa isticmaali kartaa. okay, midka caadiga balaaga iska isticmaala anigu. okay, haddaad rabtid farta waa bedeli kartaa, farta nooca rabtid ayaad ka dhigan kartaa. okay, fontiska kala duwan ayaa halkan ku jira iyagana. marka app-kan waa app aad u wanaagsan. haddii aad rabtid marka inaad mobilkaaga dhigtid meesha la ku taakay, kadibna sidaas okay baad leedahay, sidaas oo geeskaas ayaad u dhigi kartaa. haddii aad rabtid waqtiga saacad markaas la taagan yahayna kaliya dhanka midigta u jiid
waqtigeed arkaysaa waa. Okay, haddii aad rabtid timerna dhankaas kale focuska ayaad saaran, dhankaas kale ayaad u jiidaysaa. Simple marka. halkaa marka waxaan iskula aragnay sida loo soo degsado appka adoo isticmaalaya taleefankaaga. Haddana waxaan isla arkaynaa sida loo soo degsado computerkaaga adigoo isticmaalaya macOS ama Windows. Si aad u soo degsatid marka appkan, si aad ugu soo degsatid waxa la yiraahdo computerkaaga, waxaad tagaysaa marka ugu horeysa Microsoft Store ka tag ama Chrome ka naftiisa waa soo degsan kartaa. Search bar-ka waxaa ku qortaa marka qaybtaas kore waxaan qoraysaa Flip Clock ayaad qoraysaa. markaa ku dhufatid Flip Clock si fudud kuwa badan ayaa jiro, kuwa qaarkood waa lacag sida halkan kaaga muuqata. Desktop digital clock free. marka waxaan rabnaa anaga inaan soo degsano waxa la yiraahdo appkan oo ah Flip Clock la leeyahay. Flip Clock midkaan ay ku qoran tahay hadda ayaan soo degsanaynaa. Flip Clock desktop digital clock way. kadib waxaanu leenahay install ayaan leenahay soo degsanaynaa. isaga MB-diisa waa dhowr 19 MB way. markuu soo degsano kadib installation-kii hadda socdo open ayaan leenahay. haddaan furaynaa, markaa furna kadib waxaa horta desktop-kaaga inuu soo saaro mu ogolow. kadib wuxuu leeyahay formaatkan isticmaal oo 24 saac ama 12 saac midka aad isticmaal. kadibna sidaan ay u soo muuqanaya appka. wuxuu ku sheegayaa taariikhda bisha, taariikhda markaas la joogo 2026 saacada iyo daqiiqadaha. second-kan hoos ayuu kaaga sheegayaa. qaybta kore wuxuu kaaga sheegaya waxa la yiraahdo air quality, dabaysha waxay ku socoto, huurkii, humidity ah iyo pressure-ka waxaas oo dhan ayuu halkaas kaaga sheegaya. haddii aad design-ka inaad bedelo kaliya waxaan ka bedelayaa appearance-ga halkan. intaano appearance-ga mid ka ratid ayaad dooran kartaa, kan ayaad ku dhufan kartaa. haddii ratid waa bedeli kartaa. kuwa qaarkood waa premium oo ayaa laga rabaa, laakiin kuwa free-ga iska doora. inta badan aniga waxaan doorbidaa midkaas black-ga ah ayaan doorbidaa, ama midkan kale oo bish ah. inta waa isagana aad qaadan kartaa, waa free isaga. okay, qaybtan kale daarba marka inaan sameeyo aan ka baxo simple halkaas aan ku dhufanaya si minimize loo dhaho. anoo hawsheeda iska wato computerkayga isticmaalayo ayaa halkaas ayuu ii saaran yahay. haddii aan rabo inaan soo weyniyo meeshii aan ku laabanayaa, waxaan leeyahay keliya sidii ayaan kusoo furaya. okay, marka appkan waa app aad u faa'iido badan. insha Allah laga faa'iideyso labadaba taleefankaaga iyo computerkaaga waa kula soo degsan kartaa. muuqaalkeena halkaas ayuu noogu yahay. assalaamu calaykum. haddii aad nagu cusub tahay fadlan subscribe saar channelka waa channelka soo dhawow.